wuxuu isagoo murugaysan hor fadhiyaa hooygii uu ku aqalgalay habeeno ka hor oo burburay biyo badanna uu dhigay roobkii ka da'ay caasimadda. xalay cawada saddex u ahayd intuu arooska ku jiro ay u ahayd laba biro soo gal arooska habeenkii saddexaad waa lagu kala tagay oo jeedin alxamdulillah raxmada ilaahay keenay waa faantay Soomaa way u qornay digaarkayga. alaabtii loo dhigay arooska cusub iyo joodariyadii ay ku aqalgaleen waxay dhex sabeynayaan qolka. xaasla aniga aroos ahayd aroos saddex habeen jooga marka saddex habeen kaliya aqalgaleed xala saddex ay weed saddex habeen oo kaliya ayuu aroos ahaa wiilkan oo lagu magacaabo Aadan Cabdullaahi Maxamed. habeenkii saddexaad roobkii xalay Muqdisho ka da'ay ayaa saameeyay gurigiisa. goobtan aan dhex taaganahay waa gurigii uu ku aqalgalay Aadan. sidaad u jeedaan biyaha waxa inoo marayaan jilbaha oo saameynta roobka u geystay awgeed qaybo ka mid ah qolka waa uu burburay guud ahaanba. waxaan halkan dhaawac ka soo gaaray Aadan oo dhaawac jireed oo aan muuqan soo gaaray. waxa iga dambeeya waa alaabtii jiifka uu Aadan lahaa, joodariyadii uu Aadan ku aqalgalay oo habeenkii saddexaad ay u ahayd. dhammaantoodna waxa ay dul saaran yihiin biyaha soo galay qolkiisa. aabaha dhinac taagan waa aabaha dhalay Aadan. waxa uu inooga warbixiyay sida uu u saameeyay roobka gaar ahaan arooska wiilkiisa. ku soo gaday jooradaas gabar oo walaal aan aho asxaab aan xaafadda la deganay dahmaka xataa soo dhiibtay lacagteeda oo Nairobi ka soo dhiibtay. wixii isku aruurinay meeshan dejinay alxamdulillah saddex boqol alaabta ka soo bixay arooska wixii dhamaa u jeedin. xalay cawada saddex u ahayd intuu arooska ku jiro ay u ahayd laba biro soo gal arooska habeenkii saddexaad waa lagu kala tagay oo jeedin alxamdulillah raxmada ilaahay keenay waa faantay Soomaa way u qornay digaarkayga maasdaam insha Allah hadan waa la iska qeyraa walaala joogo ehla joogo gabadha guriga watada la geeyay sababtoo inta ma lagu hay karo oo jeedin biyo buux guriga watadiisa la geeyay meeshay joogtaa meeshan noo joogtaa alxamdulillah Allah noo dhaafo. hadan waxaan jecelnahay in walaalahan ninkii wax awoodo inuu gaar ahaan noo soo fiirsho. arooska cusub ee Aadan oo murugaysan oo aan la hadalnay ayaa dhankiisa ka hadlay dhibaatada gaartay. wuxuuna ka sheekeynayaa marxaladihii kala duwanaa uu soo maray guurkiisa iyo sida roobka ay u saameeyeen. ugu dambeyntiina bulshada Soomaaliyeed ayuu ka dalbanayaa caawinaad inay ku garab istaagaan aqalgalka gurigiisa cusub. okay waa dhaba marka hore xaafadda degana waxa waaye degmada Boondheere gaar ahaan barxadda Ceelo Muuday. roobkan aan ugu bilowday xalay maqribkan oo ka soo baxay masaajidka ka soo baxay masaajid markaa ka soo baxay saamaan ugu bilaa markaa saamaan ugu bilowday marka si ilaa oo fili way macnaa ilaa xaqiisa qeyrka ka yimid. marka maxaad ahayd adiga maxaad ahayd aniga xaasla aniga aroos ahayd aroos saddex habeen jooga marka saddex habeen kaliya aqalgaleed xala saddex ay weed oo roobka da'ay marka kaasa roobku markuu daa markii soo sameeyay roobku markuu daa sidaan uu sameeyay u jeedaa alaabtana sidaan iga helay markii maacunti waxaas teeda kale midna anigoo alaabta waxaasana jug xoogan soo gaartay oo jugtan hadda gudaha u muuqata ma dhaawac banaanka yaala ma aha. marka kaasa bulshada Soomaaliyeed waxa ku codsanayna ninkii walaal wax noo tari kareen wax noo soo qabto alaabta sidaan inaga taa marka inta saacil ka qabna wax kale cilka ma qabno. adoo marka aroos saddex habeen kaliya aqalgal roobkii da'ay gurigaada inuu burburiyo sidee u dareentay? waxa uu dareemay xanuun la soo koobi karnaa oo dareemay sababtoo ah xalay laalana guriga dhex taagana ma hurdina xataa xalay laalana dhex taagana intaasna xanuunkaas ay ka keenay marka joodariyadii iyo alaabtii hadda biyo dul sabeynayaan dul sabeynaa kana waxba kama qaban karo oo iska dirbeena awood wax ku qaada maayo waa kana sidaan u yahay kulligood waa burburay hal kale meel loo geeyay lama haysan oo burburay wax laga qaada maaha alaabtan roobka burburi guriga ku soo kordhumay marka marka bulshada ku daawanayso gabadhii xaaskaada gabadha xaaskeeda guriga kale way dadayay marka hadan ima dhawo roobka markuu soo galay iyada oo baq nafteeda oo baqsamaan marka xaafad meesha saagay waa ka saa bulshada Soomaaliyeed oo ku daawanayso maxaad ka dalbanaysaa? okay bulshada waxa ka codsanayaa inkastoo ummad Soomaaliyeed dadka Soomaalidu as garab istaagaan inuu halkan garab nagu siiyaan ka codsanaynaa. labadaag lambarka ee kala saaraysa lambarkayga furaa waa eber 94 eber 8 furaa waa eber 94 eber 8 waa kan alaabta naga burburay aad iyo aad marka saxaabana sidana